Sahmiye Foundation ayaa soo gabagabeeyay tartankii xawaaraha akhriska iyo fahamka oo ay ka qayb galeen 10,300 qof waxaana abaalmarino ku guuleystay 9 tartame oo ka ugu horeeya la siiyay $5,000 halka kaalinta labaad uu qaatay $2,000 kaalinta saddexaad $1,500 iyadoo kaalinta afraadna la siiyay $1,000 waxa iyaguna min $1,000 helay 4 tartame oo kaalinta koowaad u galay magaalooyinkooda iyo tartamihii ugu da'da yaraa tartanka. waxaan jecelahay in aan u yeedho labada inan ee qaatay labada lambar ee kow oo iyagu mar miiska wada iman doona. bismillaah 1 2 3 waad bilaaban kartaan. waa hagaag waxaan filayaa inaad wada arkayseen natiijada xawaarahooda iyo akhriskoodaba runtii natiijooyinka ay ku soo kala gudbeen ilaa inta wareega ku jireen iminka bimatalan oo kale haddaynu eegno isbedbeddel badan baa u dhexeeya aan sacab ku saboodsinno dhammadoodaba natiijada fiican baynu eegi doonaa. waxaan u yeedhi doonaa labada tartamee kale cabdiraxmaan bare iyo cabdiraxmaan axmed. waad bilaaban kartaan insha allah. hal daqiiqo ayaa kuu dhiman 10. waxaan rajaynayaa inaynu shaqada yareyno. waxay idiin muuqato aad arkaysaan haddaan ku horeeyo cabdiraxmaan axmed bare oo gabiilaya in heerka fahankiisu marxalado fara badan buu soo maray laakiin rikoorka ugu dambeeyey halkan uu ku yimaadaa waxa waa 4% markii hore caawana waa 130 sida idiin muuqata. xawaarihiisu markii hore akhriska sheekadii ku horeysay waxa waa 569 caawana waa 362. madaxa fursadaha ama youtuber markaasi cabdiraxmaan axmed maxamuud rikoorkii ka horeeyey ee halkan uu ku yimi 50% buu ahaa. xalay hal buu ku baxsaday fahanka inuu gruubka kaga hadho hal buu xalay kusoo badbaaday laakiin caawa dadaal dheer buu sameeyo isaga ugu sarreeyay intaanu ilaamka arkayno 650 weeye heerkiisa fahanka. halka akhriskiisu xalay uu ahaa 430 xalay akhriskaa dheerinaya laakiin fahan ku sigtay caawa wuxuu xaqiijiyey inuu yahay gruubka kooxaha tartamaya ninka u sarreeya kayse aadan ciidle iyo cabdiraxmaan axmed maxamuud oo labaduba hargeysa soo dhowaada. kayse aadan ciidle waxaad ma hawl yarayn mar haddaad intaasoo marxaladoodba ka soo gudubtay waxaad u tartamayseen in waa kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad ee labadiinuba kolley natiijadana dee halkaasaa laga sheegi doonaa. aad ba u mahadsantihiin labadiinuba horta 1 iyo 2 baad kala tihiin. Sundus waxay ahayd tartamihii ugu da'da yaraa 32kii tartame ee ka soo qayb galay tartankan ee finalka soo gaadhay. weliba taa waxay ku darsatay Sundus heerka fahankeedu inuu ahaa 100%. waxaase hadda ka bilaabi doonaa tartamayaashii magaalooyinka ugu sarreeyey. anigu horrayn u yeedho yuusuf iidle yuusuf oo ah tartamii ku guulaystay magaalada laascaanood. waxa uu helay lacag cadadkeedu tahay $1,000 oo abaalmarin ah. qoray buuri maayo tareex maalmaami karo habka dhaqan ka iyo hidaheena iyo horwe aan ku xajinno tartamaha gobolkii awowiyaasha waa shaafici maxamed cali oo ka tartamayay magaalada Cergaabo. wuxuu ku guulaystay $1,000 oo lacaga. Cergaabo dhowr goor cirkii gala baxsho geeduhu baxeen waa goob janneed. Cergaabo reer hargeysana waxaan leeyahay ilaahay rasuul wiidu soo diray ilaashada adalku salaam. iyo tartamaha saddexaad waa tartamaha ka socda magaalada Caashiqa magaciisana Cilmi
maxamed ibraahim baa la yidhaahdaa wuxuu ku guulaystay $1,000 oo lacaga mudana meeshay ku taallaa muhiimad weyna muftaaxi weeye mandaqadoodan madsada dalka abuuti siiyey barbara mudana meeshay ku taallaa mar labaadka waxaan doonaynaa sidoo kale inaan abaalmarinta kunkaan ku soo bedelo kalluun kaalinta koowaad buu magaalada boorama u galay waa khaalid cabdalla saalax magaaladii aqoonta miyaasow iyo sintii boorame ubaxya ku salaamayaan sido doonaa afartii tartame ee caawa halkan ku kala baxay ku kala guulaystay kaalinta afraad waxaa ku guulaystay cabdirashiid maxamuud cabdi oo ka socda magaalada burco wuxuu ku guulaystay lacag cadad yahay $1,000 lagu taftaafi duca waxay ku taallaa xididada tiliicin tabinaaya dhiigi tobaniyaasha joogiyo xidiga tartamaye isku taxay dushiisa taxaniiga hirayo dhisma faraashadeediyo tarantarinta laafya burco waxaan malinayaa hadal looga baqan maaye insha allah markay abaartii way sii dhammaanaysaa naga dhammaato caanageel badan baan idiin soo rari doonaa aan u yeedho tartamaha kaalinta saddexaad ku guulaystay cabdiraxmaan axmed barre magaalada gabiley waxa uu ku guulaystay lacag cadadkeedu tahay $1,500 hardoorkiyo qaybta gabilayba tahay iyo gobolkii cagaarnaa waxaan u yeedhi doonaa guulaystihii kaalinta labaad galay waa isla magaalada hargeysa waa kayse aadan ciise wuxuu ku guulaystay $2,000 dhigoona carfiga laydhaada wacan mar uu ku caweeya rabay nin kastaaba wuxuu sheegtay magaaladu ka yimid baa wax ugu bedelayaa buu idhi anugu laakiin maayarkaa markan xagga hoose fadhinay buu idhi intiina guulaysataa dee maxaad noo goshihin magaalo ahaan anugu waxaan ugu bedelayaa inaan magaaladeennii aanu ku hagaajinno aanu ku bilicsanno waa tahay waxaynu u yeedhi doonaa youtuberkii caanbaxay heesaaga caanbaxay rugsi lagu habeeyey fanku heer ku gaadha hooygii martidayo hooyadii abwaanka hooygii martidayo hooyadii abwaanka marka hore bari bismillaahi raxmaan raxiim dhammaantiin waad mahadsantihiin marka hore anigu shaqo gaara baan hayo youtuber baan ahaa weliba mid maalayacniya maan ahayne waxaan islahaa ardayda uga faa'iideeyo iskoorashiibyada iyo soo dhig iyo fursadaha nolosha ee kale marka caawana waxaan ku darsanayaa inaan magaaladayda ku maalgashto oo magaalada hargeysa iyo bilcinta iyo qurxinta aan wax kaga bedelo lacagta aan qaatay hargeysay ma nabadbaa